بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا. بل إله سبحانه وتعالى mahad leh oo isagaa xamdi dhammaantii u sugnaatay. waxaan ilaahay ka baryaynaa bal inuu inoo sahlo kitaabkan ansaaka aan isugu nimi ee ah manduumadan alfiyada ee imaamkii Suyuudi leeyahay. kolley bal waqtigan dee aan haysan doono oo aan badnayn iyadoon islanay kitaabka bal intii ilaahay idinka dhib yareeyo horta kaba gaadha walo markii hore ra'yigayga aanu ahaynba kitaabka in la bilaabo xagga waqtiga daraaddeed muqadimaad dheer iyo hadallo uma yeelanina si aan kitaabka u gudagallo. bal laakiin waxaan sheegaynaa un horta kitaabkan dee waa cilmiga xadiidka cilmulxadiidi diraayatan la yidhaha kutubtoodiisa uguba ahamsan buu kaba mid yahay, ama cilmiga cilmulmusalax ama musalaxulxadiid lagu magacaabo. dee kitaabkuna waa kutubta waaweyn ee fanniga ayuu kaba mid yahay. kolleyna funuunta guud ahaan bee dee cilmigan xadiidku kaba mid yahay, iyadoo aimadu allah ka raali ahaadee kutub aada u badan ay dejiyeen oo kale waaweyn. dee dariiq keliyay wada leeyihiin oo cilmigu waa cilmiga wuxuu ruuxa ugu sugnaadaa tadaruj, in cilmiga kuwii yaryaraa iyo mutuuntii yaryareyd laga bilaabo kuwii ku xigay ilaa laga gaadhayo heerkii sare laga gaadhayo. fanni kastaaba dariiqaan ahayn ruuxa uguma sugnaado. a'imaduna raxmatullaahi calayhi iyagoo eegaya dadkan dalabadii inaanay isla mid ahayn oo ku mubtadi ah iyo ku mutawasida iyo ku muntahiya ay leeyihiin, kutubbay habkay u dejiyeenna waa kutubtaas qeyb iyadu mubtadi ama mubtadiyiintii u munaasiba, kuwa haddana kuwii dhexe kuwana kuwii sare u munaasibkaas ah. kutubta funuunta kala duwan baanu arkayno ee kala waaweyn. war markaatan leeyihin waxa weeye kitaabkani dee ruux mubtadi ah kitaabkii ma aha. ruux mubtadi ah oo imaka fanigii bilaabanaya kitaabkiisii maaha. waxa weeyaan waa ruux dee wax ka soo aqristay oo qawaaciddiisiiyo usuushiisana wax kaba fahamsan ama kolley heer jooga ayuu kitaabkiisii yahay. marka ruuxii islahaa imaka halkan kitaab baa la bilaabay, horena aan cilmigan musطalaxa ah waxba aan kaba soo dhigan, ee doonay kitaabkan inuu dhegaysto ama uu markaas kolley kaasi waxaan filayaa waqtigiisu ama dee isagii kitaabkii u munaasibkaana maaha, waqtigiisina waaba kaga dayacmaya ee waxa roon halkii laga bilaabi jiray ah kutubtii iyo mutuuntii yaryarayd inuu kaba bilaabo. bal markaatan leenahay kitaab mubtadi maahe waa kitaabka isagu dee kutubta waaweyn kaba mid ah. aan arki doonana bal kitaab kale uu isagu soo hadal qaadi doono iyo waxa kaba dhexeeya. arrinka kaleen leeyahayna waxa weeye imaamkan Suyuudi kolley tarjamo uma baahno oo wuxuu ka qani yahay tacriif. waa naarun calaa calamba xagga shuhradiisa iyo tarjamadiisa dee iyadoo caamka noqotay ee kutubta isaguna kutub kala duwan buu isu tarjameeyeyba. isagaa kutub kala duwan oo kutubtiisa ka mida isu tarjameeyey. dee kutubtiisa la madbaceeye aada u faraa badanna kitaab kastaba tarjamo uu leeyahay, ama ha dheeraato ama ha gaabnaatee way kaba horeysaayo. marka bal waxaan leenahay tarjamadiisiina isna imaka wax sidaasoon iskaga taagaynaa adigumaba jirto oo xagga taraajimtiisa. dee xagga kalena waa imaam mawsuuci ah, macnaa fani iyo 2 iyo 3 kuma koobna. funuuntii iyo culumtii jirtay oo mid kastaba baac weyn buu ku lahaa. xagga marka la eego taaliifkeedii iyo tasniifkeediina qeyb weyn buu kaba qaatay, hadday qur-aanka iyo culumtiisa tahay, xadiidka iyo culumtiisa hadday tahay, oo xataa xadiidka markaan riwaayada eegno kutubtan 6 ah iyo muwada'a maalik intaba sharax buu ku wada leeyahay, weliba la wada madbaceeyey 6 ummuhaadka iyo
bal imaam axmed kitaabkiisoo malaa dee ku weynaado hababkii uu kuwan kale u waday aanu waxa weeyaan dee ay noqotay kitaab xajmigiisuu kaba wan yahay kitaab uu leeyahay madbacaysanoo cuquud zabarjad laba yidhaaho uu isagu meelaha mushkilaadkiisun ku icraabo waa icraabuhun meelaha axaadiida musnadka ee yar ishkaalka leh ayuu kuba icraaba laba mujaladna lagu madbuceen dee cilmiganna waaba tan aan hayno heerkooba joogiyo dee kutubtii kaluu lahaana waaba gabaranayna waxaa la dheer haddana fiqiga iyo usuushiisa iyo qawaacidkiisa intaba iyadna kutub kala duwan buu leeyahay intaasun kuma koobna culuumulcarabiyana iyadana dee kutubta aada u nafiisa kutub aada u nafiisa oo uu taaliifkiisu ina soo gaadhay ayaa jirta oo aada iyo aada u qiimo badan cilmiga taariikhdana intaasoo kitaabo taariikh iyo taraajima waa leeyahay bal haddaba dee waa caalimka isagu mawsuuciga kolley dhalashadiisu 849 hijiraday ahayd qaahirana waa ku dhashay bal waxay soo naqliyeen ibnulkutub in laba odhanayo yidhaahaan aabihii oo isna nin caalimo ahaa walow dee yari uu kagaba dhintay isagoo 5 jira uu dhintay ayaa hooyadii oo malaa umuwaladaadbu u dirtay iyadoo dee malaa dhow inay kitaab halkii kutubtiisa uga soo dhex saarto uga soo qaado meeshii bay fooshu ku qabatay yidhaahaanoo sanbaa deeto ibnulkutub looba yidhi bal markaa bal majliskii xaafid ibnu xajar isagoo 3 jir aabihii geeyey waa dee xuduurkii ciyaalka yaryar la geyn jiray 3 jir buu ahaa waqti tamiis ama wax kaa maqlo ma joogin oo kale bal marka la eego xagga isaga cilmigiisaas isagoo yar buu noqday dee kolley dakahiisii iyo nubuuqiisii iyo bal fahamkiisii badnaa uu muuqdo 17 jirkiisiibaa bacda mashaaqi ay u idmeen culuum alcarabiya tadriiskeed babaaba loo ijaaseeyey bal sanadaas kitaab uu kaga hadlaya isticaadada iyo basmalada waa 17 jirkii buu dejiyey waa kutubtiisa kala duwan ee wax yar iyo waxa weyn bale kitaabkan jalaaleynka mandiqadeena dee waxa weyn tafsiirka jalaaleyn waa isaga iyo jalaaludiin almaxalli labadaas baa wada leh waana kitaabka tafsiir bay noo ahaa isagiyo xawaashidiisu mandiqadeena kolley waana kitaabkaas ha koobnaado alfaadiisu ha koobnaatee dee aada iyo aada u shuhuroobee nafciga badan qadarku ku leeyahay waa suuratu albaqara ilaa suuratu alisraa dhammaadkeeda waayo in suuratu lkaaf ilaa birabbinaas iyo haddana faatixadu bilaabay jalaaludiin almaxalli baa leh qadarkaa uu alifay 21 jirkiisii bay ahayd waa kitaabka aan hayno tafsiirka jalaaleyn 21 jirkiisii bay ahayd weliba wuxuu bilaabay maalin ramadaan ay kow tahay iyadoo waa 21 jirkiisii shawaal 10keediina u dhameeyay 40 cisho intaa ku alifay waa qeybtiisaas isagoo 21 jira waa nubuuqiisii markuu 40 jir gaadhay kolley duruustii iyo meelihii wax ka dhigi jirayo dhammaanba waa wada joojiyey iftihii gaar buu isaga noqday dadkiiba waa ka dhex baxay meel rawdat almiqaas la odhanayay buu taasoo ilaa uu ka dhimanayay isagoo 61 jira halkaasuu joogo dee laakiin taas baa inuu kutubtiisii taxriiriyo dabdiyo ama taaliifkaasi waxyaalo badan u dhib yareeyo dee marka halkaasaa uu ahay noqday dadka o dhan ba inuu kaga dhex baxo kolley kutubtiisaasi aada iyo aad bay u badantahay intayna soo gaadhayba culimada qaarkood qolooyinka hore ilaa 600 oo kitaab waa leeyahay bay idhaahdeen laakiin bacd almucaasiriin kun in ka badan cunwaan ayay gaadhsiiyeen walow wax la dee la madbaceeyey wax makhduuda iyo waxaan lahaynba ay isugu jirto qeyb kutubta kaba midina ay rasaa'il iyo ajzaa yaryarta oo barhkood safaxaad aanay kaba badnayn bal waxa weeye kolley taas buu ahaa 911 hijiradana dhimashadiisiiba ahayd raxmatullaahi calayhim bal taasi iyadu waxa weeye taa ama kitaabka iyo wax ku tacalluqsan kama hadlayno dee kitaabka gudagelaynaaba ma inay waxa weeyaan casharkiinaynu maantaba hagaag inoogu bilaabmo waa ta aan rajaynayno saa daraadka uma raagina laakiin waa nubdo yar oo cidan cilmigeeda kuba intifaacaynaynan bal macrifo u yeelano fahmuba yeelano xaq buu inagu leeyahay ruux kastoo aad kitaabkiisii kaga faa'iidaysatay bal isagoo 100 sanood dhintay kol haddii aad kitaabkiisii kaga faa'iidaysato isagiina xaq buu kuba leeyahay oo sidaa imaam nawowi kaba cabiro sidaa waalidkeennii oo kale ayay yihiin
oo inaga mudan dee duco inay wax kaloon qabanna ma jirto inaan u ducayno bal aan garanno taasna oo dee fadligoodaas iyo waxaa khayrka ayna soo gaadhay sheekh bay inoo yihiin oo waa mashaaikhdeenni unbay kaga mid yihiin ducana way naga mudan yihiin bal aan ilmaam iyo balgarasho u yeelano kitaabkan iska bilaabaynaa haddii ala idhaah kolley maanta inta yaree hore uu dee kaga hadlay mabaadi'dan 10kaa qeyb kaba mida iyo inahaasun baan gaari doonaa si marka dambe kitaabka kale loo gudagalo wuxuu yihi markaa imaamku raxmatullaahi calayhi bismi illaahi araxmaan araxiim lilaahi xamdii wailayhi astanid wamaa yanuubu facalayhi actamid ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والتساق والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان bal ilaah baa mahadle kolley aniga calaaqada kitaabkan dee waxaa laga yaabaa waqti aada u dheer dadka jooga imaka halkanba haday badankoodu dhalan oo waa laga yaaba dee imaka waa kitaabkan uguba aqrin badnaa marka la eego kutubta musalaxa laga yaabaa dee walow kuwo kaleo waxoogaa ka aqriya ay jiraan alifyada ciraaqi mare unbay ahayd markii ugu horeeyay aan kitaabkan u fadhiistay iyadoo dad dalabi iyo hor joogaana 1396 hijrada dir labana way ahayd oo waqtigaa kooyo adigu imaka dee sanadana waa bilow aan leenahay waa 50 sanadood magaaladeennana waa markii labaadeen dabal usoo fadhiisto oo 92 hijrada iyadoo wadcigu aanu sidanba ahayn bal kutubba aan laba haysan ayaan masjidka Abubashiir bal aan kuba aqriyay iyaduna taas dee Jabuutina dhowr goor baan kuba aqriyay ama horta 3 goor inay noqon ma filayaan bal taaba weeye oo kitaab muddada dheer waxa weeye kolley aan xiriir u lahayn ama calaaqa aan lahayn ilaahina waxaan ka baryaynaa bal haddii aanu imaka inoo taam noqono khayrun inuu inoogu taam yeelo wuxuu yihi naadimku raxmatullaahi calayhi lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday xamdigayga u sugnaaday mahadinta aan mahadinayo aan ku xamdiyayo isaga unbuu u sugnaadayba وإليه إساق حقي سوما لا إلى غيره أستند أن كتير سنة يا نعسكنا يا مركا لأيغو أما علمي هبا النقطة إيا نظمي أدون إيا إنو ألفية علمي مصطلحة نظمية تأتسير كذا النقطة أما وحكا عمصا بهبا النقطة وأموره سلمان تدبه إليه ألتجي ويساق ما قال يا نتير سنة يا عن بعد عسكنا يا أمورها يقدمان تد ay kaa mid tahay inuu ii dhib yareeyo arrinkan aan imaka gudagalayo wamaa yanuubu ay wamaa yusiibunii weeye waxay asiibaya igu imanaya oo min annaa'iba oo bacnaa waxa weeye waxay igu imanaya ee asiibaya cawaa'iq ah ee iga hor joogsanaya inaan maqsuudkan imaka aan leeyay aan taam yeelo kaasna facalayhi إلهي كركي أمبان أما إلهي أمبان سبحانه وتعالى اعتمد عسكنا في دفعه له إنه وحا دين نوائبتا بل مثلا إيغو إيمانيا إيغو هرشوك سنيا وحي مقصود كيجيد إنم تام يلو دفعه سيئ إنه إيغا إلاليو إيغا دافعو إيغا بدباديو إلههم بابا عسكنا يعتمد يستند ولا بلفتي اسكو دو بركود نواب مرادف أيلاهان macnuhuna waxa weeyaanuun hadday tahay balan halkan bilowga kitaabkan aan bilaabayo iyo hadday tahay wixii cawaa'iqa iga hor joogsanaya ee kitaabkan igaba hor joogsanaya itmaamkiisa iga hor joogsanaya ama dee umuurihiisa kaleba wuxuun baaban ictimaadsanaya ilaahay subxaanahu watacaala inuu wixii cawaa'iqana iga daafaco kan maqsuudkaygana ii taam yeelo ii fudaydiyo لله حمدي وإليه أستند وما ينوب فعليه أعتمد ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمد ثم على نبيه أنا ثم دني وترتيبتي الزمني المركة حق الرتبة أموية رتبة يدو حمدي قد بدي باي رتبة صلي ويا إله حمدي سهر رأيه
waxaa soo raacaya salligii rasuulka ilaahay laguma saliyayey sumadna markaa xagga tartiibtaas bal matalan rutba ahaaneed bay uba sugnaatay marka waa intaas xamdiga ilaahay subxaanahu watacaala aan kuba xamdiyayo nicmooyinkiisa badan in laba tirin karahayn ay kaba mid tahay dee nicmadan cilmigu iyo waxa weeyaan taaliifkan taa dabadeed calaa nabiyihi nebigiisii waxa weye muxamedin muxamed ah korkiisa ha ahaato khayru salaatin ama salaata ugu khayrka badan wa salaamin iyo salaam oo sarmadi daa'ima oo waxa weeye waa de bal xamdiga ilaahay dabadii uma calaa nabiyi uma calaa nabiyiha ay khayru salaatin wa salaami sarmadi way salaad iyo salaam ta ugu khayrka badan ugu taamsan ugu kaamilsan oo weliba joogto ah oo daa'ima lafdiga sarmad mina sardi bay leeyaha tataabuc iyo dawaamka shayga miimku markaa zaa'id buu iska noqonayaaye ta ugu khayr badani ha noqoto oo ilaahay ha yeelo calaa nabiyihi muxamedin rasuulkiisii salawaat ullaahi wasalaamu caleyh muxamed ahaa kolley salligiiyo salaamtiina waa israaciyey waa muqadimada sharaxa muslim iyadoo imaamkii muslim salaadun uu laba yiman u salaam laba iman ayuu soo naqliyaa bal markaa karaaho bal inay taasi tahay in la kala saaro oo la kala reebo bal xaggan tashahudkana waa tan dee siiqadan ibraahimiyada allahuma salli calaa muxamed wacala ali muxamed salaami lama socoto laakiin waxaa ka horeeyey dee ataxiyaadkii assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullaahi wabarakaatu baa ka horeeyo way wada socdaano halkaa may kala hadhin rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saxaabadu markay salliga kayfiyadiisa weydiinayeen maxay dhahaan salaamtan waan garanaynaa waayo waa taa dee ugu sugnaydba tashahudkii rasuulka ilaahay baa salliga weydiin walow xaafid idhaa raxmatullahi caleyh imaamkaas karaahu ka cabiraa inay karaahatay in la kala reebo xaafid ibnu xajar baa raxmatullaahi caleyh wuxuu yidhaahaaba dee karaahada waxay noqonaysaa ciddii caado ka dhigatay had iyo goor ama calayhi salaam unbuu odhanaya ama sala allahu calayhi unbaabuu odhanaya caaday u noqotay inaanu israacin kaas baa fii xaqihi karaaha ay tahay ruuxii isagu bal matalan dee kolkol ay kaba dhacday kolkol kala reebay laakiin aanay da'bigiisa iyo daydankiisa caadadiisa taasi aanay ahayn iyada waa karaaha laguma tirinayo deetuu soo qaadaa shaafici iyo raxmatullaahi calayhi dee imaamka muslime u nawowi hadalka markuu sharxayay kitaabkiisa laba yimi muqadimada iyo markaa abulqaasim abu isxaaq ashiraazi iyo qolooyin ay dhacday iyagoo aan israacin oo bal markaa wuxuu kaba dhigaa dee iyaga waa israacin jireen arrinkani daydan ama caado umay ahayn markaa fii xaqihim karaaha lama odhanayo waa ruuxa marmar ay ka dhacdeen laakiin ruuxii si joogta ay ugaba dhacdo ayay noqonaysaa dee ilaahay subxaana watacaala uu ina wada amray salliga iyo salaamtu ina wada amray inaan la kala reebin waana kan imaamku israaciyey wuxuu yihi markaa imaamku raxmatullaahi calayh wahadihi alfiyatun taxki durar manduumatun damantuhaa cilma alahar wahaadihi tani ishaaradu waxay noqonaysaa dee qaaliban waxaan leenahay waaba abyaad yaroo kooban oo ma odhanayno markuu kitaabka dhameeyuu dib ugu soo noqday oo deetuu markaa in waxa weeyaan inta yaree muqadimada ah ama intan yaree hordhaca ah ayuu nadmiyey ma odhanayno ee waa tartiibtan unbay lahayd marka ismu ishaarana haada iyo haadihiba shay maxsuusa ayaa lagu ishaaraa wax muuqdo oo maxsuusa laguba ishaaraa kol haddii aanu kitaabkiiba alifinna dee waxa weeyaan shay maxsuusi ma jirin marka taasaa maxay taydhaan waxay ishaaradu tahay macaanidan inay ma aha inuu iska bilaabo kolba beyd kusoo dhaco inuu iska odhanaye waa wax dihnigiisii uu kusoo xaadirsaday tartiib ahaan iyo wuxuu odhanaya wixii o dhan oo macaanidan alxaadira fii dihni ayay ishaaradu noqonaysaayo waa ishaarada markaa xaggii dee maxsuus xukmi ahaan bay ka noqonaysaa walo bacdigood ay kala qaadaan hadday muqadimadu ay ka horeysay kitaabkana ishaaradu shayga waxay noqonaysaa macnawiga almacaani alxaadira haddii laakiin ay ka dambeyso intuu kitaabkii alifay waa la arkay dad saa sameeye mar dambe muqadimadiisii kusoo noqdayna dee haddaan idhaahno hadal la yidhi buu hadalkani ahaayo go isla mid bay noqon
laakiin haddaan nidhaa dee waa wax maxsuus oo imika waa kan qoraalkii iyo kitaabkiiba jiro iyada markaa shay maxsuus oo la ishaarayay noqone bal waxaan leenahay waa macaanida alxaadira fi dihn ayuu ishaaraya wuxuu leeyahay tani alfiyatun alfiye weeye waa kun beyd oo urjuuso loo nisbeeyey waa kun beyd marka dee beydkii la wada tiriya shadri loo tirin taas weeye taasoo taxkii shabahaysa addurar waa jamcu duratin waa jawharada weyn ee aada u nafiiska ee qiimaha badan oo xagga marka la eego qiimaha ay leedahay iyo dee casiisnimadeed qiimaheeda sarraysiya nafaasadeed iyo cisati wujuudiha inay dhibyaraantaa laguma hele ayay shabahaysaa waana waxa ay kulabansatay ee dee cilmi ahaayee uu dimni siiyey manduumatun bal waanan rafcinaynaa barhkood baa dee dabdigooda uu soo naqliya manduumatan ee manduumatun waxaana weeye mid la nadmiyey oo taasoo damantuha aan dimni siiyey macnaa dhexdeeda aan kuba sheegay oon ka dhigay mid kulansanaysa cilmo alahari cilmigii xadiidka waana cilmigii mustalaxa bal waa alfiyo aada u qiimo badan oo dee aakhirkana kitaabka kolley ammaanteeda wax kamida waa ku sheegaya shabahaysa waxyaalaha aada u nafiiskee sida lagu helaa ay adag tahaye wujuudkooduba uu naadirkaye aada u qiimaha badanee waa jawaahirta waaweyn ayay shabahaysaa xagga qiimaha ay leedahay waana taa manduumada aho waxaan ay kulansanaysaana waa cilmigii xadiidkee mustalaxa ama cilmu lahar marka bal halkan imaamku raxmatullaahi calayhi wuxuu ihi wahaadihi alfiyatun alfiye weeye horta dee kalaam dheer maan dooneyn inaan kaba horeysiiyo sababtu si aan casharkii isaga wadano kitaabkuna dee shuraax waa leeyahay sharaxan anigu aan hayaa waa sharaxa sheekh maxamed cali aadam raxmatullaahi caleyhi sharaxiisii iscaafu dawil wadar dee sharaxyo kala duwanna waa la haystaayo sharaxii malaa sharaxyadayna soo gaadhay ugu horeeyey waa sharaxa manhaju dawi nadar laba yidhaahe tirmisi leeyahay imika dabcaad kala duwan baan arkayo markii hore dabco keliyaan arki jirnay bal maalan taas dee sharax yaroo maxamed muxiyidiin leeyahay laakiin uu yar tacliiq waxoogaaya u yeeshay nin dee joogaba oo laakiin xagga xadiidka aada uguba fiican oo daariq ibnu ciwadillah la yidhaah filaya maraykan in degan iyo minnesota kolley kutub kala duwan leh kaasna waaba jira axmed shaakirkiisuna waa jira waxa weeye axmed maxamed shaakir isaguna waa jiraayo waa sharaxyada bal meeshii jira ee bal kitaabka uu leeyahay marka alfiyu ka cabiray kitaabkan isaga sheekhan sheekh maxamed cali aadam raxmatullaahi calayhi kolley waa 954 baa abyaada kitaabkan ku sugan ay tahay barhkood shaakirtiis oo kale 981 baa dhinaa halkaas oo kale tirmisi isagaa wax korkordhiya wuxuu isagu yidhaha weliba xagga dambana uu kaga hadlaa kitaabkiisa dhammaadkiisa dee waa 980 waa inay nuskhadiisu ahayd marka 14 beyd oo xagga mucalalka ah ama mucalliga uu kordhiyey 4 beyd oo xagga asbaabu nusuul uu ku daray waa fiqro dhan uu ku daray beyd xagga aadaab almuxadis oo weli bukhaariyi rubaaciyaatun beyd saasa bal adigu 20 sugayeen laakiin marka la eego waxa laga yaabaa inay nuskhadiis adigu ay intaa ay kaba badan tahay marka isagana wuxuu hayay 985 noqonayso bal marka waxa ay tahay alfiya dee haddaan nidhaahno waa taqriib iyo dee marka la eege laakiin waxbaa kaba dhiman imaka meel aan nidhaahno halkaasay wax ka dhaceen oo saqad intaa leeg baa jira oo meelo ka dhacayna sidoo xataa tirmisi yidhaah markoon aada ugu fiirsaday meel adhaa waxbaa ka dhacayna maba jirto ee isagu wuxuu ka dhigaa si waxay nuskadan uu isagu helay ee muswadadiisii inay nuska kaba dambeysay intaa in ka siyaadsanay ay kuba sugnayde laakiin dee nusqooyinkii la hayay kolley intaa ma wada gaadhsiisno bal waxaan leenahay dee waa taqriib ahaan laakiin kunka beyd iyada ma dhina alfiyada ciraaqi waa alfiya iyada 1,002 beydba weeyo iyada way buuxdaan bal haddaba waxa weeyaan waayo mar dambena uu odhan doonaa markuu dhammaynayo haadaa tamaamu nadmiya alalfiya ayuu dhammaadka ku odhan doonaa waa alfiyadii marka kitaabka waa inuu 1 beydba ahaa
dee hadday meelo qaarkood ay wax ka dhaceenna wax horta isku xidhanimo ay dhicin marka xataa tadriib loo eego iyo taasi bal waa kunkaa bayd waxbaa kaba dhiman un baan leenahay ee taxki durar manduumatun damantuha cilma alathar faa'iqatun alfiyat alciraaqi faa'iqatanna barhkood waa dabdigooda u ahaayo la xaaleeyo haddaba tani waa alfiyo taasoo faa'iqatun ka kor noqonaysa alfiyat alciraaqi ciraaqi alfiyadiisii xaggan ugaba horeysay cilmigan musalaxayd ibnu salax ku nadmiyey ka sareysa weeyo ka hor sareysa maxay kaga sareysaa fi ljamci waa ururinta anwaacda la ururinayo oo anwaac ziyaado ah oon kitaabka ciraaqi ku sugnayn ayaa kitaabkeennan ku sugan oo bal dee ma yara waxyaalaha uu ziyaadinaya waliijaasi koobitaanka iijaaska oo macnaa waxa weeye alfaadihii oo yar macaanidna ay badan tahay meel 6 bayd ahayd ama 7 bayd baa laga yaabaa kitaabka 3 bayd inay noqoto oo iijaaskaas oo koley de waa waxay halkay ziyaadadu ka soo baxayso waa koobitaanka alfaadihii lasoo ururinayo iyadoo macnuuna uu badan yahay jaanibkaasna way kaga horeysaa buu leeyahy watisaaqin intidaamka xagga isu munaasabnimada waa waxyaalaha anwaacda say isu lahaayeen oo laysu raaciyo say isugu munaasib ahaayeen oo laysu raacraaciyo bal taasna waa iyadoo kaga horeysa bal in yar haddaan halkan ku yar joogsano dee kitaabkan kale alfiyada ciraaqeysna waa kan inoo mutawafirka ah waanu ka horeeyey bal bayd kitaabka dhexdiisa ku sugan markuu adaabta muxadidka iyo daalibka iyo kaba hadlayay waqra kitaaban tadri minhu listilaax ka haadihi wa asliha wa min salaax taasuu yidhaahayo waa daalibka isagoo waxa weeyaan dee leh waxaad u baahan tahay inaad waxa weeyaan cilmigana dee aada fahmo u yeelatee kitaab aad istilaaxa ahluxadiidka ka ogaata aqriso deetuu yihi kahaadihi waa kitaabkiisuu sheegaya wa aslihana wa asliha waxay ku fasireen waa alfiyada ciraaqi bay ku fasireen shuraaxda oo dee waa ka horeeyey oo xaggaas marka waa ugaba horeeyey oo bata iyo wa min asalaax bal markaa waxaan leeyahay labadan alfiya dee waa laba alfiya horta mid kastaaba faa'iidaheeda badan ay leedahay kitaabna laa yakhlu kitaabun min faa'ida si mala hadal ibnu jawsi lahaa kitaab dee faa'iido ka marani ma jirto ha yaraado waa la kala faa'iido badan yahay mid kastaana miisaad waa leeyahay ka kale uu la dheer yahay oo markaa ay tahay taasi ay keenayso ruuxii daalibka labadoodaba inuu isku darsado waayo fawaa'id kitaabka ciraaqi ku sugan oon halkan ku sugnayna waa jirtaa fawaa'id kan ku sugan oon kaa kale ku sugnayna waa jirtaa way isbuuxinayaan baan leenahay taas markaa bal wuxuu sheegay alfiyada ciraaqi 3 arrimood inuu kaga horeeyo mid waa jamcinta wuxuu wadaa waa anwaacdan kitaabkeenu kulansaday oo bal haddaan eegno kitaab buu nadminaya 65 nooc hadday ahayd marka la eego ibnu salaax iyo de ciraaqi alfiyadiisi isagii 80 nooc buu gaadhsiinaya oo xataa xagga asmaad iyo kunyooyinka iyo kol 10 nooc oo aanay kitaabkaa kale kuba sugnayn ayaa kuba suganoo waa jamcinta anwaacda marka la eego waa ka anwaac badan yahay iijaaskana waa alfaada urursan macnahooduna ballaadhan yahay dee isagoo doonaya inuu macno waxyaalo badan oo ziyaado ah sheego wixii kitaabkaa hore ku sugnaana uu kulansado taasi waxay keentay inuu alfaadihii bal uu doorto jawaamicda iyo alfaado urursan oo macno badan loo xaggaasna waa uga badan yaho dee taasna waa jaanib kale oo iyadna mudan oo waxaa laga yaabaa si aan sheegayo dee meelana intan aan kuba deelintaa kitaabka qeybtan haddii insha allah ilaahay hadduu inoo dhib yareeyo waa qeyb aan gaadhi doonaba ayaa meel uu isaga 3 bayd kitaabkeennan kuba sugan ayaa kaa 7 ama 6 bayd iyo shadri noqonaysa oo xaggii iijaaskii waa uga mudan yahay taasna itisaaqana kitaab buu nadminayay waa kitaabka ibnu salaaxna tartiibtiisu imaamku raxmatullaahi caleyhi a'imadii ka horeysay kutubtoodii baahsanayd ayuu soo khulaasaynayay oo soo talkhiisinayay taasna waxay keenaysay kolba nooc intuu taxriiriyey inuu u yeedhiyo dadkii dalabadiisa ahaa markaasaa waxyaalo ay ahayd inay israacaan ayaan israacin waxyaalo ay ahayd dee in meel lagu wada sheegana may dhicina way kala baaheenba oo si dee lahaa saasaa mudan
u fiican ama isuguba marka la eego xagga ay munaasib isugu noqonayaan wacdi umay dhicin kitaabkii ibnu salaax isna kitaabkii buu nadminayay isagii waa ka dambeeyey arrinkaasi mulaaxadadaasna waa ogaa aimadii kale say u tartiibiyeen sida xaafid ibnu xajar iyo waxyaalihiisa isu raaciyeenna in badan buu isaga kaba faa'iidaysta waa arkay markaasaa daraaddeed xagga marka la eego intidaamka iyo munaasabada marka la eego iyo tanaasubka anwaacdu ay isu munaasib yihiin isaga kitaabkeena kaga horeeya taas bay noqon laakiin kitaabka kale dee kolley isaguna jawaanib buu leeyahay uu kaga mudan yahay mid waa asaalada oo dee isagaaba kaba horeeyey bal dee maqaamkooda xadiidna waabay kala sarreeyeenoo taasi waa mid oo xataa waxyaalo qaarkood dee isaga laguma bushiyey bushigaasi kumuu imanbe iyada taasi waa mid arrinta kale jirtaa waxa weeyaan isagu kitaab buu nadminayay suyuudina waa ka doonayay inuu ururiyo macno in ka badanba sheego aqwaasha culimada ee halkan kuba sugan oo kale kolkol buu qowl keliya ku kaaftoomaa kitaabkeenani isaguna 3 qowl soo naqliya sida tacriifka xasanka oo kale isagu xaafid ibn xajar tacriifkiisiibuu ku tacriifiya walow aanu dee magaciisa xusin laakiin taas oo kale isagu khadaabi iyo adigu ilaa 3 laga yaabaa tacriif inuu laba yimaado matniga kulaba yimaado marka xagga marka la eego aqwaasha culimada sheegitaankeed iyo bal arrin kale jirto maaha qowlkii uu la sheegay in qowlkan cidii lahayd loo nisbeeyo fulaan ya la magacaabo kitaabkeenana wax saas kagama sugna laakiin kitaabkaasi way kuba suganto waa arrin uu ku horeeyo oo uu kaga mudan yahay arrin kalena way jirtaayo kitaabkeenan dee inta badan noocii buu dhigi waa ka hadli bal ama xukum haba sheego way ku yartay amhilada uu la imanayo miaalo kitaabkaasi laakiin waxaa dhici kartaa bal akthar min miaal inuu meel keliya ku kulmiyo oo markuu kaba hadlayo kale xadiidkii nooca shaadkii munkarkii ama taasoo kale inuu amhiladii buu matnigii soo dhiganaya amhilo xadiidii u dhigan amhiluu soo dhigan bal markaa taasoo kalena xagga amhiladuna dee mithaalku hadiyo goor masaladii buu furaayo idaax badan oon marka mithaal la-aantu lahayn buu la yimaadaaye xagga amhilada sheegitaankeedana kitaabkaasi waxa weeye dee waa kaga badan yahay bal kitaabkeedna marka la eego dee aada buu ugagaba badan yahayoo waxaa kaga horeeya marka alfiyad ciraaqio bal mid kastaaba miise aan ka kale lahayn bay leedahay miisada ay kitaabkeenu lahaana 3 shadrigan buu imaamku kuba ururiyey bal kitaabka kale miisada uu leeyahay saa daraaddeed baan leenahay way isbuuxinayaanoo ruuxii daalibka labadiiba waa wada baahan yahay ruuxii daalib cilmiga ahaa ama daalibka xadiidka labadiiba waa u baahan yahay waxaynaan kan ka helahayn baan isaga ka helaynaa waxaananaan ciraaqi kaba helahayna waan ka helaynaa kan oo si anwaacdaa ziyaadada ah bal markaa way isbuuxinayaan baan leenahay faa'iqatun alfiyat alciraaqi fi ljamci walijaazi waatasaaqib wallahu ilaahay yujri min alijraa weeye waxaa tirmisi baa yejsi oo kale zana soo naqliya uu abaal marinaya wuu ku dareerinayaa oo uu ku socodsinaya bal saabiq alixsaani waa alixsaan asaabiqa weeye ixsaanka taamka ah ee kaamilka ah li aniga hadiyo goor ruux markuu ducaysanaya inuu isagu iskuba bilaaba kolley adaabteedii bay kaga mid tahay iyo walahu imaamka ciraaqi iyo walidowil iimaani dadkii kale mu'miniinta guud ahaanba ilaahay baan ka baryaynaa inuu ixsaan taama nagu manaysto nagu dareeriyo nagu taas oo uu nagu abaalmariyo ixsaanka taamka aniga hadday tahay iyo isaga hadday tahay ciraaqi iyo ladowlimaan qolooyinkiina kolley manhaju nadar haysta markuu ciraaqi qabanaya meelahan ciraaqi wuxuu ka dhigay 805 inuu dhintay kolleyna 806 bay hayd isaga dhimashada imaamka ciraaqi 5 may hayn 6 bay hayd bal in waxa weeyaan taasi waa intaa yare hordhaca in waa kan ina yidhi liljamci oo kolley waa waxyaale zawaayid badan uu lahaay oo kale qaybtan imika inoo bilaabmaysa waa waxyaalihii uu ciraaqi la dheeraa kitaabka ciraaqi umuurihii ula dheeraay ziyaadadii kitaabkeenan ayay noqon wax yar baa kaga sugnaanaya ciraaqi umuuraha abyaadan imika yar muqadimada ah ee ah xadda xadiidka iyo wixii la xidhiidhayay uu kagaba hadlayo xad alxadiidi waqsam wuxuu yihi naadimku raxmatullaahi calayhi cilmu lxadiidi duu qawaaniina tuxad
يدرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. umuurihii almabaadi alcashara ay odhanayeen waa wixii ugu ahamsanaa, waa saddexdii ugu ahamsanaa buu labadan beyd ku soo ururiyey. waa xadda oo ama tacriifkii ah, mowduuca uu leeyahay, iyo hamarada faa'iidada laga faa'iideysanayo. waa saddexaasaa uguba ahamsan. saddexdii buu markaa halkan inooguba tacriifiyey ama inoogu soo ururiyey. marka wuxuu ihi naadimku raxmatullaahi calayhi, cilmulxadiidi xadiidka cilmigiisu waana cilmulxadiidi diraayatan weeye. waqtiyada qaarkoodna waxay odhan jireenba haddii cilmulxadiid la idlaaqo kaa mustalaxa iyo diraayadu ku dhaca, walow berihii dambe dee ay noqotay haddii cilmulxadiid imika waqtigeedna laba yidhaaho dee kan riwaayada iyo qeybtan iyadu dee axaadiidii aqwaashii rasuulka ilaahi iyo afcaashiisa nooguba sugantay uu kuba dhaco. haddaba cilmiga xadiidku duu qawaaniina waa qawaacid mid u saaxiiba tuxaddu la xadeeyo. qawaaniin jamcu qaanuuni weeye, qaanuunna bimacna alqaacida weeyaan. waa waxyaalaha dee waxa weeye kulliga ahee daama dee waa amar kulliha oo jusiyaadkiisii wada daboolayo. bal taas baabay dhan wixii ay qaacido odhan jireen weeye, ayaa qaanuun iyo qaacida waa islaba mid. haddaba wuxuu u saaxiib yahay qawaacid buu u saaxiib yahay, taasoo tuxaddu la xadaynayo oo la dabdinayo oo la dabdiyo ayuu u saaxiib yahay, taasoo yudraa lagu ogaanayo biha qawaacidda iyo qawaaniinta axwaalu matin wa sanad. matin iyo sanadka axwaashooda, axwaashoodan iyagu sanadka iyo matin ay leeyihin sixa iyo xasannimo iyo dacf iyo ay kaba mid yihiin, ama dacfi, rafci iyo waqfi iyo waxyaalaha axwaashaa sanadku yeesho, caali iyo naasil iyo matiga uu yeesho ayaa imaka lagu ogaanaya. waa mowduuciiba cilmiga. fadaanika labadaas waa matniga iyo sanadku almowduucu wixii loo dejiyey cilmigan weeye. taasi waa mid, waa mowduucii. walmaqsuudu haddaba waxaa qaradka laga leeyahay, hadafka laga leeyahay iyo waxa laga faa'iideysanayaana waxa weeye an yucrafa in la garto almaqbuulu xadiidka kiisii la aqbalayo si loogu camal falo, iyo walmarduudu kii la celinayo si looga tago in la garto. taasba weyn. waxaa jirtay imaamka raxmatullaahi caleyh kitaabkiisan, walow mar dambe mala ay ahayd, sharaxiisu waa sharxay. wuxuu ku magacaabay albaxru aladii zakhar buu ku magacaabay. sharxiisii lama wada hayo, bal intiisii badnayd waxaan filayaa inaan lahayn dee in meel la helo uun mooyaane, laakiin wax la madbaceeye aan ogeyn. waxyaalaha lagaba hayaayo qeybaha hore ay kaba mid yihiin. qeybaha hore, qeybaha dambana iyagoon siracraacsanayn oo kolkol wax badna u dhexayso ayaaba jirta. iyadu bal waxa weeyaan iyadoo 3 jusiya laguba madbaceeye waa qeybahan hore oo kale, oo malaanin uu kaga qaatay shahaado sare aljaamica alislaamiya anfiriya andanusi inuu ahaa albaxru aladii zakhar. kaas baa jiro dee qeybaha waa heli kartaan. kalaamkiisna waa iska dheeriya, dee isagaana beytkiisii markuu sharxayo dadkii kale waa kaga horeeyaan. bal halkaas baa wuxuu ku yidhaahaa, waxaan ku bilaabay oon u horeysiiyey xaddii cilmiga xadiidka iyo mowduuc iyo qaayihii. saddexda waa saddexa labadada kulansanayo. markaasaa wuxuu yidhaahaa baahida loo qabo ayaa badan oo ah ruuxii daalibkaha, si uu bal waxa weeyaan waxaan uu bilaabayuu doonayay inuu gudagalo tasawur fiican uguba yeesho masaa-ishiisaa badan. taas baa waxa weeye aan uguba bilaabay buu leeyo. hadal buu yidhaahaa, fa ina man carafa maa yadlub haana calayhi maa yabdulooye. ruux hadduu garto waa hadal. fa ina man carafa maa yadlub haana calayhi maa yadlub. ruuxa garta waxaan u dalbayaa muxuu yahay, dee hawshii iyo juhdigii iyo wixii uu ku bixinayey ee horaya u fududaanaya markaasoo la sahlanaanaya. ama wixiiba haddaan garanayn faa'iido uu leeyahy wuxuu yahay, dee waaba kugu cuslaanayaayo dadaal badanba inaan la siin baa la arkaa. fa ina man carafa maa yadlub haana calayhi maa yadlub. markaa kolley tacriifkan uu tacriifiyena soo halkaaba kuba sheego waa ibnu jamaaca, imaamka la yidhaah. bal kitaabkiisii waxa weeyaan uu kuba sharxay culuum alxadiidki, ama ibnu salaaxna dhowaan waa la madbaceeyey, isagoo ajzaa ayaa la madbaceeyey oo dee la helayaa. cizudiin ibnu jamaaca ayaa wuxuu ku tacriifiyaa oo uu ka dhigaa, halkan uu qawaaniin ka cabiro waa isagaaba yihi taasaan ka soo qaatay, laakiin meelunbuu wax ka yar bedelee.
cilm bqawaacida yucrafu biha axwaal الsanadi wاlmatn. cilmigan musطalaxa waa cilmi qawaacid leh lagu garto sanadka iyo matiga xaalooyinkiisa. wa mowduucuhu almatn wasanad, waa hadalkan uu nadminayey, kaas buu nadmiyey. mowduuciisna waxa weeye matiga iyo sanadka. markaasaa laakiin muxuu yidhah wagaayatuhu macrifatu صaxiix min hayri, waxa laga helayo iyo gaayihiisa maxay noqon صaxiix iyo kii kale in la kala garto. halkii uu isagu yihi macrifatu صaxiixi buu u bedelay an yucrafa almaqbuulu, lafdiga maqbuul wuxuu ugu bedelay si xasankiina uu soo galo, oo صaxiix iyo xasankii dee waa lagu wada camal falaya uu soo galo ayuu intaasu halkaa waa tacriifkii intaasuu ka bedelay. isagaaba dee sheego sharaxiisa kuba sheego albaxru aladii zakhr. haddaba wuxuu yihi fadanika labadaasi waa matiga iyo sanadku almowduucu wixii loo dejiyeyba weeye. fadnigan waxaa loo dejiyey lagaba hadlay waa labadaas kama baxsana iyo axwaalahooda kala duwan. walmaqsuudu waxaa loo jeedaa ama waxaa laga helayaa hadafka loo baranayaana muxuu yahay iyo hamaradan ka helayniyo gaayuhu an yucrafa in la garto almaqbuulu kii maqbuulkaayo markaa lagu camalfaloo la qaato waa kii maqbuulkaa xadiidka kaba mid ahaa. walmarduudu kii la celinayo markaa lagaba tago. waana cilmu xadiidi diraayatan markay tahay. ama cilmu xadiidi riwaaya dee waa aqwaashii rasuulka ilaahi afcaashiisa iyo waxyaalaha inoo soo socda ayuu mowduuciisu noqdaan. bal saddexaas buu almabaadi alcashara ka sheegay, waana saddexda ugu ahamsanee uguba mudan. waana taa tacriifka uu u arkayay inuu tacriifka ugu jaamicsan yahay oo ugu urursanna ibnu jamaaca tacriifkiisu saasuu inoogu nadmiyey sheekhu raxmat ullaahi caleyh. marka wuxuu ihi wasanadu likhbaaru can dariiqi matinka lisnaadi ladaa fariiqi walmatnu mantahaa ilayhi sanadu min alkalaami walxadiidi qayadu bima udifa lilnabiyi qowla aw ficla wataqriira wanaxwaha xakow. wuxuu yihi imaka halkan sanadkii iyo tacriifaad guud buu inoo sheegayaa oo umuuro inagu soo noqnoqonaya ama cilmiga kusoo noqnoqda inoo tacriifinayo. waa sanadkii iyo matnigii iyo xadiid iyo khabar iyo ahar, intaas buu waxa weeye halkan tacriifkoodii buu inoo sheegayaa. intaasoo dhanna waxaan idhi abyaaddan imaka aan hayno waxaan beydka ugu dambeeye ahayn alfiyada ciraaqi kuma sugna, ziyaadaadkiisii uu la dheeraabuu ka mid yahay. allahuma shadri xagga aharka oo kale ayaa halka mowquufka kagaba sugan shadri beydka iyo isaguna ka ugu dambeeye ka ku xiga shadriga ugu dambeeya ayaa isna alfiyada ku sugan. intuba waa zawaa'idiisii wixii uu laba dheeraa, kitaabka uu laba dheeraa bay tahay. marka wuxuu uhi wasanadu sanadku alikhbaaru waramid weeye can dariiqi matin, matniga dariiqiisa waramitaanka laga waramayo. oo macnaa dariiqan kolley dariiq iyo rijaal iyo sanad iyo wax keliya baan iskaga wada idlaaqaynaaye, laakiin waramidda lagaba waramayo xadahanaa fulaan can fulaan laba leeyahay, taas baa sanad lagu magacaabaa. lafdiga sanadna haddii la yidhaha fulaanun sanad dee waa ruux laysku halleeyo oo la cuskado ama la umuuraha looba cuskado, taas buu noqonoo dee sanadkiina isaga xadiidka sixadiisii iyo sixa la-aantiisii wixii loo cuskanayaba ay tahay, tan baa sanad looguba magacaabay. waxaa kaloo yidhaahaan dee waa xagga marka la eega inuu martabasa dee rafcintan imika uu sheegayba waxay leeyihiin waxaan buurta halkan dhaadhaceeda ama intan sanaageeda inta ka sareysa ayaa sanadna laguba magacaabaa. isagiina ruuxii musnidka markuu sanadkii la yimaado ciddii qaa'ilkahayd baa loo koryeelaya. waa munaasabo taase, bal adigu waxaan leenahay sanadku waramitaanka dariiqan matniga lagaba waramayo ee ruwaadiisa la sheegaya can fulaan la leeyahay baa sanad la yidhaah. haddaan si kale u dhignana sanadku ruwaadda naftoodaabaan kaba dhigayna, waa raggan silsiladan ama dariiq wixii laguba magacaabayey, ruwaad wixii lagu magacaabayey, waa dadkan imika sanadka inooguba sugan ayaa waxa weeye inooguba sugan matniga ka horeeya ayaaba sanad lagu magacaabaya. waana tacriif labaad. kalisnaadi wahuwa isagu markaa sanadku markaan saan idhaahno kalisnaadi isnaadkii buu laba mid yahay ladaa fariiqin, fariiq muxadisiinta ka mida agtooda, uma haddee dhammaantood markaa ma wadahaa. lada fariiqa haddii la tacriifiyana nusqooyinka qaar way dhaceen. wuxuu leeyahay sanadku alikhbaar can dariiqi matin waxaa la mida isnaadkii, laakiin waa culimada qaarkood agtooda ayaa isnaadkii iyo sanadku ay isku mid yihiin oo laba lafdi oo mutaraadifa. haddii la yidhaha xadiidkan sanadkiisu waa saxiixiyo
isnaadkiisu waa saxiix, waa macnahay keenayso. laakiin bal markaa barhkood baa sanadkana ka dhiga ruwaadda naftooda. isnaadna waa masderkii asnade waa tiirintii qowlkan uu ruuxu odhanayo xadaanaa fulaan can fulaane hadalka ciddii tidhi loogu kor yeelayo, taas bay isnaadkana kaba dhigaane. laakiin wax weyn maaha, waxa uba dhexeeya isla midna dee marka la eego isticmaalkoodii waa inoo soo baxaya, iyadoo inaan alikhbaarba odhana aan ka dhignayba ruwaadda naftooda. silsiladan ruwaadayna gaadhsiinaysa, matagayna gaadhsiinaysa. kalisnaadi ladaa farqa cinda daa'ifati min culamaa ilxadiid, barhkood iyagu waa kaaway yar kala farqiyaan. walmatn matnguna mantaha wixii uu ku dhammaado weeye ilaahi xaggiisa sanadu sanadka wax la wadaba wuxuu ku dhammaanayo oo min alkalaami hadal ah. dee sanadkii xadaanaa fulaan can fulaan marka la leeyahay marka dambe sanadka dhammaado kalaam baa ka dambeeya. kalaamkaasi ama kalaamkii rasuulka ilaahi noqdo salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ama cid ka sokaysay ee kolba sanadka dhammaadkiisa hadalka imanaya ayaa matni la ydhaahaa. oo walmatn maakii weeye intahaa uu ku joogsado ku dhammaaday ilaahi xaggiisa sanadu sanadka uu kuba go-o oo min alkalaami hadal ah, kaas baa matn lagu magacaabaa. wale sharxyada haysataana lafdiga ishtiqaaqiisa iyo halku kaba soo jeediya way dhignaaneen, laakiin inaga istilaaxaan maxaa loo idhaa waa kalaamkan ka dambeeyo. haddii ruuxu xadaanaa fulaan can fulaan oo marka dambena qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam inama alacmaalu binniyaat, kaas baa matni ah, matnigu kaa weeye. walxadiida ay waqayaduu way qeydeen alxadiida xadiidkii, oo imika xadiidkiibuu haddana inoo tacriifinaya bimaa kiibay ku qeydeen udiifa loo tiiriyey ee loo nisbeeyey lilnebiyi nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, qowlan xaala uu yahay qowl, aw ficlan ficil xaalu yahay, amase sawaaun kaana kaasi haba noqdo qowlan hadal ha ahaado, aw ficlan amase ficil haba noqdo, wa taqriiran wowdu halkana bimacnaa aw weeye sida kuwa horeo kale, aw taqriiran ama taqriir haba ahaado, wanaxwaha aw naxwaha amase wixii umuuraha la midka ahaa. bal wuxuu leeyahy wixii rasuulka ilaahay loo tiiriyo, hortaasaa muhima inuu rasuulka ilaahay gaadhayo oo loo tiiriyo, oo ah ama hadal la yidhaha qaala rasuulullaahi sala allahu calay wasalam kada, ama ficil sida ficilkii dee uu rasuulka ilaahay laynoo soo naqliyo salaadiisi iyo umuurihii kaleba, ama ficil ama taqriir uu xagtiisa lagu sameeyo oonu inkirin, sida dee inuu khaalid ibnulwaliid isaga maa-idadiisii iyo agtiisii dabi iyo waxaan dabiga laba yidhaaho uu kuba cunay, waayo hadduu xaaraam ya laguma cuneen, rasuulka ilaahay agtiisa laguma cuneen. bal taasoo kale waa taqriir, bal umuurahaas baa xadiid lagu magacaaba. wanaxwahaana haddaan wowda aan deebacnaa kaba dhigna, amase wixii taa shabahayo maxaa kaba mida rasuulka ilaahay sifaadkiisii inaanu ahayn dee laysa biawiil albaa-in walaa bilqasiir almutaradid, iyo waxyaalaha rasuulka ilaahay sifaadkiisii khuluqiisii iyo khalqigiisii iyo waxyaalaha kuba tacalluqsan waa umuuraha iyaguna dee noqonaya xadiid laba odhanayo. xakow haddaan wanaxwa halkaa hore iska raacsano, xakow iska takmilay noqono, xakow waa iska jumlo mustaanafo, xakow culimadu umuurahaasay noo soo naqliyeen oo soo xikaayoodan. haddii laba idhaaho dee waxakow naxwahaadhe oo taa wixii shabahayeyna way soo naqliyeenoo xaggan xadiidka in lagu magacaabayo oo dee ah rasuulka ilaahay sifaadkiisa ee khalqi ama khuluqiga ahaa oo kale, bal taasna laakiin macnuhu waa inoo daahir. bal wuxuu ka dhigay xadiidka markaynu xadiid noqoto in lagu koobo wixii marfuuc ahaa, rasuulka ilaahay wixii loo tiirinayay ama qowl ahaa ama ficil ahaa ama taqriir ahaa ama sifaadkiisii khalqi ama khuluqiba ahaa, intaa lagu soo ururiyo macnaha saxaabadii rasuulka ilaahay hadalkooda iyo ficilkoodu radwanullaahi tacaala calayhim wasala allahu calayhi wasalam, bal markaa iyaga xadiid lama odhanayo markaasoo xadiidkii dee wuxuu ku kooban yahay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wixii loo tiiriyey uun, ama qowl ha loogu tiiriya ama ficil ama taqriir ama taasi. bal taasi waxa weeyaan waa qowl, waana qowl mashhuura. waa qowl kalena waa ka dhigto wuxuu yihi waqiila waxaa la yidhi laa yakhtasu ma gaar aha oo kuma khaas noqonayo xadiidku bilmarfuuci kaa aynu soo marnee marfuuca, marfuucna waa inoo dambeeya, kuma gaar noqonayo. bal jaa waa yimi lilmowquufi mowquufkiibuu u yimi iyo walmaqduuci. mowquufku waa kii saxaabada ku taagnaayo hadal saxaabi ama ficil saxaabi
iyadna xadiid waa la odhanayaa. maqduucna wixii taabici ku taagnaa ama cid ka sokayso hadalkii taabiciga ama ficilkiisiina xadiid waa la odhanayaa, walow dee iyada maqduucu inoo dambeeyo. waana dadkii culimada ka mid ahawnee taabiciinta hadaladoodii wax ka mida, iyaguna xujo maaha, laakiin waxaa hadiyo goor halkan loogu sheega meelahan ay u keenaan anwaacda xadiidka ay ugu soo diraanna waan arki doonaa markaa dambeyn gaadhno haddii la idhaha meeshaase. bal mawquufka iyo maqduucana iyadana xadiidu waa la odhanayaa, taas baa barhkood yidhaaheen. bacda culamaa ilfani baa taas yidhi oo xadiidku kaa kuma koobna ee wuxuu xadiidkii kaa aynu soo marrayna xadiid waa la odhan, marfuuc mawquufki iyo maqduucina xadiid waa laba odhanaya. markaasaa wuxuu yihi fahuwa markaa xadiidku calaa haadaa wa binaan calaa haadaa tacriifkan dambe een yidhi khaas maaha, waa wax caam ah, marfuuc iyo mawquufki iyo maqduuciba wada shamlinaya. haddaan kaa ku soconno muraadifu lkhabar, khabarkii bay isla mid yihin. wuxuu leeyahay alkhabar, xadiidkii rasuulka ilaahay khabar waa la yidhaahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. saxaabada ridwaanullaahi tacaala calayhim aqwaashoodii ama afcaashoodii khabar waa la odhan. in maqduucii iyo taabiciintii aqwaashoodii afcaashoodii iyadna khabar waa la odhan. marka haddaan xadiidkiina caam ka dhigno saddexaasba uu shamlinayaan idhaahno dee khabarkii iyo xadiidkii waa isla mid, macno keliyay wada yeelanayaan oo khabarkiina saddexaaba waa lagu idlaaqaa, xadiidkiina saddexaasba waa laguba idlaaqaya. laakiin qowlkii hore haddaan eegno meye xadiidku wuxuu ku kooban yahay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wixii gaadhaya la gaadhsiiye loo koryeelay ama loo idaafeeyey. washaharuu radfa alxadiidi walahar, inta kaloo dhami waa inta aan lahayn waa ziyaado. beydkan intan dambe kolley meel mawquufka ka mida alfiyada ciraaqi ay kuba timi. washaharuu waxay shuhreeyeen culimadu oo macnaa wax mashhuura ay kaba dhigeen oo qowl mashhuura ay kaba dhigeen waa culimadii. wax mashhuura radfa alxadiidi ay taraaduf alxadiidi weye, xadiidka iyo walahari aharku isfangalka isfangelayaan macno keliya ay wada leeyihiin ayay mashhuureen. macnaa halkana muxuu inoo tacriifinaya alahar. alahar baqiyatu shay waa la yidhaha, dee waxaa kaloo dee calaamadii macaani kalena waa u yimaadaa. haddaba bal aharkiibaa isagana tacriifkiisii muxuu kaba dhigay. xadiidkii kol haddii uu yahay kaa bal markuu saddexdiiba inoo shamliyo, ahartiina axaadiidtii xadiidkii unbuu la mid noqonayaa ay isla mutaraadif yihiinoo xadiidka rasuulka ilaahay gaadhsiisnaa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh, saxaabada qowlkoodii, taabiciintii, intiiba ahar waa la odhanayaa. ahar dee aathaarna waa kuwa kuba jamciya, xadiidkaba sidaa loo odhanayo. marka haddii aynu hadalkaa kuba soconno oo kaa imaka xadiidku inuu caam yahay, aharkiina la mid weeye, sidaa khabarkiiba la mid u noqdo isla mid noqdana. washaharu waxay shuhreeyeen radfa alxadiidi ay taraaduf alxadiidi walahar, xadiidka iyo aharku inay isfangelayaan oo isla mid yihiin oy macno keliya ku wada imanayaan. waana jiraan bacdu fuqahaai khuraasaan sida imaam nawowi aima ay soo naqliyaan oo aharka kaba dhigay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ciddii aan ahayn sidaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo ciddii wixii loo nisbeeyey oo ka saaray markaa xadiidkii marfuucaha. dee kutubtan marka la eego in kolley sida mushkilu aathaarkaas oo kale oo dee uu kulansaday, saddexdiiba waa kulansaday. taadiibul aathaarka uu leeyahy ibnu jariir idabari, isagu inta badan waxyaalaha kale waxay u yimaadaan mucaarade dee asalka iyo mowduuciisa axaadiida rasuulka ilaah ba ahayd oo iyadoo athar lagu magacaabaye. bal waa umuuro xaggii istilaaxa ah oo barhkoodna way kala farqiyeen oo aharka waxay ku koobeen saxaabadii iyo taabiciintii umuurihii loo nisbeeyey, xadiidkana rasuulka ilaahay dekaa loo nisbeeyey salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh. barhna isku mid bay ka dhigeen oo aharkiina way caam yeeleen sidaa xadiidkana ay u caam yeeleenba. wuxuu bal markaa beydkii intan ugu dambeeyo isaga alfiyada ciraaqina ku sugan. walakharuuna culimada intoodii badnayd qasamuu way qeybiyeen haadihi sunan. sunanta halkan waa jamcu sunatin, waana axaadiidan weeye imaka tacriifkeedaenu kaba soo marray, taasi uma jeedaay. waa istilaaxa xadiidka inoo soo tacriifiye. sunantan waxay u qeybiyeen ilaa saxiixin wa daciifin wa xasan, saddexaasay u qeybiyeen. macnaa culimada xadiidku intoodii badnayd xadiidka saddexan bay ka dhigeen oo xadiidkii maqbuulka ahaabaa saxiix iyo xasan wada noqon. hadduu heerka sare ee dee lagu aqbali lahaa gaadhsiisayina waa kaa saxiixa lagu magacaabayo.
haddaanu heerkaa gaadhsiisnayn laakiin dee waxa weeyaan iyadna waa kaa xasan lagu magacaabayo kii intaa aan ahayna waa kii marduudkaayo waa kaa daciifka la odhanayo bal ciraaqi raxmatullaahi calayhi isagu beytkan oo kale ayuu lahaa laakiin wax yar baayoo dee umuuro dee markaas kolley kuba yimi oo dee kitaabkaas marka ciraaqina waa kitaab la sharxay laga shaqeeyo sida kitaabkeennan ma aha bal ragga isla wada casri ahaa biqaaci oo kale kitaabkiisana nukatalwafiya ma dhamma laakiin dee inta laga madbaceeyaba waa in aada u qayima zakariya alansaari fatxulbaaqi suyuudi sharax buu ku leeyahay alfiyada ciraaqi sakhaawi sharaxiisa weyn intuba isla wada casri keliya ahaayeen haddana kitaabkaa waataa laga shaqeynaya waayo kitaab diraaso ahaayo lagu dhigi jiray maraakistii taas oo dee sidaasu kuba shuuroobay haddaba cibaaradiisu waxay wa ahlu haada shani qasamu sunan ilaa saxiixin wa daciifin waxasano wuxuu ka dhigay isagoo agariin muu odhane shanigan iyo cilmigan xadiidka ehelkiisu waxay u qeybiyeen xadiidka صaxiix iyo daciif iyo xasan waayo kitaab buu nadminayay kolle hadalkana waxa uga sii horeeya khadaabi iyo dee waana kan tirmidiba kuwa badan taqsiimkaasi taasay u baniyeen laakiin waxa isagoo alakharuuna imaka halkan uu yidhi dee culimada xadiidka waxaa kaba mida kuwa xadiidka qismada hunaa'i ka dhiga laba un kaba dhigo saxiix iyo daciif un kaba dhiga marka xasankiina saxiixu gelaya bal dee albani raxmatullaahi caleyh kutubtan uu kala saaray saxiixu ljaamic iyo daciifu ljaamic iyo saxiixu tarkiib iyo daciifu tarkiib iyo kuwan sunanta ah oo kale qeybtii xasanka waxay saxiixay raacday oo labadan marka dee rag horaa jira oo iyagu bal matala labadaasun uba qeybiyey oo tan buu deeta alakharuun u yihi waa nugto halkaa jirta daraaddeed laakiin imaamku kitaabku nadminaya iyo khadaabi hadalkiisaoo isna ahla xadiidka sidaa kaba soo naqliya waxyaalaha jiro deetuu isagu yihi waa ahlu hada shani wey shaniganoo markaas laakiin dee maxay tahay inay qolooyin jiraan taa naftiisa dee waxay ka dhigeen inay dee aqlabkii tahay unoo waxay raaceen taasay tahay qolooyinkaasi qolooyin ay jiraan sunantii iyagu kaba dhigay laba unu qeybiyey allah subxaana wa tacaala aclaa aclam